جمال حاج علي علمي ayaa ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Haddaba TV-ga Darwish oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyay musharaxnimadiisa iyo waxa xilligan ku kalifay. maxamed shaqalle aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo Darwish TV xiriirkaadi la soo samayseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. su-aasha aad weydiisay maxamed shaqalle ee ah maxaa kugu kalifay xilligan inaad isu soo taagto xilka madaxweynenimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo doorashadiisu dhacayso sanadka soo socda ee 2021. runtii waa su'aal wanaagsan. waxa igu kalifay maxamedow kadib markii aan arkay dalkii Soomaaliya oo aad moodo qarannimadiisii ama midnimadiisii inay ceel ku dhacday. 30 sanadood dalku burbursanaana dalka aad moodo inuu sii burburayay oo uu sii kala socday oo uu waqarka u saaran yahay imika inuu noqdo dalal fara badan. waxaad ogtahay in dib u heshiisiin fara badan loo qabtay Soomaaliya isla markaana ayan Somaliland maamulka ka jira uusan marna ka soo qayb gelin. waxaad ogtahay maamulka Somaliland marka iyo maamulka iyo dawladda federaalka markay wada hadlayaan in laga mamnuucay wada xaajoodka inay ka qayb qaataan xubnaha dawladda federaalka ugu jira gobolada waqooyi. waxaad ogtahay gobolada waqooyi inay kala aaminsan yihiin laba fikir oo siyaasadeed oo iska soo horjeeda oo ah qolo doonaysa gooni isu taag iyo goosasho iyo qolo doonaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. weli la iskuma dayin 30 sanadood in labada fikir la mideeyo oo marka hore gogol inta loo dhigo gobolada waqooyi waxa isku raacsan yihiin marka laga dhageysto oo la falanqeeyo si Soomaalinimo oo nasteexa oo islaamnimo oo ay ku jirto ama ku qotonto cadaalad loo sameeyo guud ahaan dalka Soomaaliya. nasiib darro dawladihii faraha badnaa ee isu soo bedelay dawladda federaalka laga soo bilaabo tii Cali Mahdi ee lagu soo dhisay Djibouti way ku xigtay tii Carta way ku xigtay tii Imbagati way ku xigtay intii badnayd kuwii lagu dhisay gudaha Soomaaliya. madaxdii ugu sarreysay dalka marnaba iskuma dayin inay furaan baalka wada hadalka oo aan qabo inay ku xidhan tahay mushkiladda Soomaaliya inay dhamaato. waxaan qabaa haddii aan la dhammayn khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolada waqooyi gudahooda inaan Soomaaliya ayan horay u soconayn, inaan dastuurkeedu marna la dhammaystiri karayn, inaan 4.5 laga baxayn. saasa igu kaliftay maadaama aan ka soo jeedo aan ahay muwaadin ka soo jeedo gobolada waqooyi inaan isku dayo oo aan waliba qabo inaan ku guuleysanayo inaan maamulka Somaliland ku soo dabaalo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waayo waxa weeye waxa badan gobolada waqooyi dadka aaminsan fikirka ah in Soomaaliya ay noqoto mid qura. marka taas ay igu kaliftay waxa ugu horeeya talaabada ugu horeeya aan qaadayna waxa kamid ah arrinka inaan si dhab ah uga shaqeeyo aniga oo kaashanaya waxgaradka ka soo jeeda goboladaas hadday tahay madax dhaqameed hadday tahay culimaawidiin hadday tahay haweenka hadday tahay dhalinyarada hadday tahay maamulka laftigiisa ka arrimiya iminka Somaliland dhammaantood hadday tahay xildhibaanada
iyo wasiirada iyo waxgaradka iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee hadda dowladda federaalka ka shaqeeya annagoo isku duuban oo ka soo wada jeedo gobollada waqooyi ayaan waxaan isku dayayaa inaanu wajahno arrinkaa si kafool kafool ah isu hor fadhiisanno wax isla meel dhigno wax isla ogolaanno kadibna wixii aanu isla soo ogolaanay aanu dib ula soo noqonno oo dib ugula soo noqonno ummadda soomaaliyeed oo markaanu halkaa ka sii wadno kuna gaadhno heshiis waara oo midho dhala oo soomaaliya ay u aydo dhammaanteynaya hadday tahay madaxda hadda dalka hogaamisa iyo hadday tahay kuwa mucaaradka intaba qaabka ay doorashada u dhacayso waa qaab dadban u eg tii 2016 maxaad ka filaysaa mahadsanid maxamed qaabka doorashadu ay u dhacayso haa waa mid doorasho dadban oo la mida tii 2016 runtii waxaan ka filayaa guul dadka soomaalidu sidii hore maaha waa bislaaday waxyaalo fara badan oo markii hore lagu mashquuli jiray waa laga gudbay dalka midnimadiisii iyo jiritaankiisii iyo sovereigntigiisii baa wuxuu ku jiraa qiilqiil waxaad ogtahay dowlado shisheeye ayaa iminka doorta ama u doorta dadka madaxda ka noqonaya soomaaliya ama lacag ha soo siiyeen ama fikra ka soo shubteen marka maalinba maalinta ka dambeysa waxaad moodaa dadku inuu soo bislaanayo waxaad ogtihiin madaxdii ugu dambeysay isbedeshay nin lacag bixiya iyo nin cid kala wadato intaba midna ma helin wixii uu ka doonayey xildhibaanada baarlamaanku wixii ay u arkeen ama qofka ay u arkeen inuu markaa dalka samata bixin karo ayay codkoodii siiyeen marka aniguna waxaan ku rajo weynahay sidaasi lamida maadaama dalku maanta uu marayo meel xasaasi ah in xildhibaanada lasoo dooran doono ee cusub inay isiin doonaan cod aqlabiyada oo aan isleeyahay wareeg labaadba waad ku guulaysanaysaa waxaa jira isbahaysiyo ay qaarkood ku midaysan yihiin 12 musharax oo madaxweynaha u tartamaya iyo madaxweyne farmaajo adigu yaad raacsiisan tahay maxmed waad mahadsan tahay anigu ma ihi nin mucaarad ku ah dowladda federaalka ee soomaaliya ee hadda jirta iyo kuwii ka horreeyeyba weligay dowlad soomaaliyeed oo la dhisay inaan la shaqeeyo mooyaane ma mucaaradin anigu dabcigaasaan leeyahay waxaan jeclahay oo aaminsanahay qof walba oo mas-uul noqda ama kursigaa fuula inuu wax qabtay baan aaminsanahay waxna uu qabto qofka hadduu wax isku dayana dee waxbuu khaldayaa marka aniga dhaqankaygu waxaa weeye inaan wax toosiyo laakiin aanan waxba dumin dowladdana kuwii tan iyo tii xasan sheekh iyo tii sheekh shariif iyo tii cabdullaahi yuusuf iyo tii cabdiqaasim intaba dee waan soo joogay intabana inaan taageero mooyaane weligay ma kala raacin dadkaa iska soo horjeeda ee isku haysta maaragtay kuraasta isku haysta waayo anigu dalka inta badanba waa ka maqnaa sidaa darteed isumana soo taagin dee xilalka hadda ka hor ama mid wasiir ha noqdo ama mid xildhibaan ha noqdo ama mid prime minister ha noqdo ama mid madaxweyne ha noqdo markaa sidaa darteed iminkana sidii ayaan dhexdhexaad ka ahay waayo anigu waxyaabaha aan ku shaqayn doono haddii aan dalka madaxweyne ka noqdo waa wax ii degsan oo qodobaysan marka wixii aanu isla jaan qaadno maaragtay waafaqsan waxa siyaasadda aan doonayo dalka inaan ku hogaamiyo cid walba waan la shaqaynaya hadday tahay madaxda hadda dalka hogaamisa iyo hadday tahay kuwa mucaaradka inta loogama baran xubin ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay isu soo sharaxaan xilka madaxweynenimo taas adiga maxay kaaga dhigan tahay maxamed adeer waad mahadsan tahay
dadka ka soo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaan u malaynayaa waxaa ugu horreeyey oo madaxweynenimo isu soo taagay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi sanadkii 2012 nasiib wanaag ma helin, laakiin dee hankiisana wuu muujiyey, meeshii wax lagu qaybsanayana wuu tegey. siyaasadduna dee walaalaynu nahay iyo isku gobol baynu ka nimi iyo ilmaadeer baynu nahay kuma shaqayso. waa marba sida aad adigu ula soo baxdo ama sida aad marba dadka u kasbato iyo marba siyaasadda aad la timaado oo aad ugu qanciso dadka markaa gacanta ku haya maaragtay ama dooranaya madaxweynaha. marka runtii kuma badna musharaxiinta madaxweynenimada gobolladan. taa macnaheeduna maaha inayan maaragtay xilkaa geyin, laakiin dee mushkulado fara badan oo caqabado fara badan oo maaragtay gobollada kale ee dalka aan haysan iyo gobolladan haysta. taasna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay iska dhammaato. waxyaalaha aan isugu soo taagay inaan xilkaa qabtana taasaa ka mid ah, inaan soo afjaro mushkuladda iyo maaragtay dhibaatooyinka gaarka ah ee haysta gobollada. runtiina waxaa nasiib darro ah gobolladaas oo ah gobolladii ay ka soo askuntay madax bannaanida iyo gobonimo doonka ummadda soomaaliyeed, in soomaaliya ayan u abaalgudin, bal iska badaayey ay ilaaweynba, oo taas maaragtay macnaheedii ay ugu abaalgudeen inaan maaragtay dadkaas ku nool gobollada daraawisheed waxba laga soo qaadin. laakiin dadkaas waa dad adkaysin badan, horeyna u soo adkaystay, iminkana maaragtay adkaysanaya. waa dad xoololaya oo dee dal iyo dadba haysta. dad sidaa maaragtay ku tasoobaya ma aha. soomaaliduna hadday abaal leedahay dee waaba u garan lahaayeen oo iyagiiba u dhiibi lahaayeen, waayo dad umalayn maayo ka daacadsan oo ka dowladnimo jecel oo ka midnimo jecel inay ku jiraan dadka soomaaliyeed. marka insha allah sanadkanna waa ku guulaysanaynaa. kuwa soo socdana waxaan rajaynaynaa muwaadiniin badan oo ka soo jeeda gobolladaas inay sharaxaan kuna guulaystaan xilkaa mar labaad. xildhibaanadii deegaanada sool sanaag cayn waxaa lagu dooran doonaa Garowe. taas micnaheedu waxay tahay inay galaangal ku yeeshaan doorashada madaxweynaha ay maamulka Puntland maamulayso. adigu qaab caynkee ah baad ugu xisaabtami kartaa xildhibaanada Puntland? maamulka Puntland se xiriir ma leedihiin? maxamed adeer waad mahadsan tahay. waa runtaa waxaa lagu soo dooranayaa xildhibaanada SSC magaalada Garowe. waxaan rajaynayaa markaa iyaga iyo kuwa kale lagu soo dooranayo Garowe, xildhibaanada ka imanaya Garowe dhammaantood inay codka isiinayaan baan qabaa oo ku rajo weynahay. sababta waxa weeye anigu ma ihi nin dalal shay wataan, ma ihi nin dambiile ah oo dalka dembi ka galay, ma ihi nin dowlado shisheeye ay lacag soo siiyeen, ma ihi nin laaluush iyo maaragtay corruption iyo musuqmaasuq ku imanaya xilka ma ihi. waxaanay muwaadin soomaaliyeed oo nadiifa oo u siman ummadda soomaaliyeed, jecelna dalkani inuu ka baxo mushkiladan hadda uu ku sugan yahay. marka keligood maaha, xildhibaanada dalka oo dhan waxaan ka rajaynayaa inay codka ay siiyaan, aanan si fudud u hanan doono xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya. waxa aad isleedahay waa lagu dooran karaa muxuu yahay? maxamed adeer waad mahadsan tahay. waxaan isleeyahay doorashadan la qabanayo 2021 qof kaaga habboon inuusan jirin. sababta waxa weeye horta waxaa la yidhi geedka intaadan tegin baa horta gartaada lasii naqsadaa. markii anigu aan ismiisaamay dhinac walba waxaa ii soo baxay jagada madaxweynenimada dalka Soomaaliya inaan qaban karo dhinac walba, xagga aqooneed,
xag waayo aragnimo xag deegaanka aan ka soo jeedo xag kartiyeed intaba inaan maaragtay u qalmo inaan xilkaa qabto kuna guulaysto sababaha aan taa ku sababeeyey waxaa ka mid a tan iyo intii aan qaan gaadhay anugu waxaan ahaa nin ama wax baranaya ama shaqaynaya weligay inta aan baaga muddada noqday waa yarta dalkan intaan joogay iyo intaan soomaaliya joogayba marka balwadeydu anigu wax kale maaha waa shaqo iyo cibaado labadaasa aniga ii ah habit ii ah ama ii ah waxa af soomaaliga lagu yidhaha maaragta caada ii ah marka mar haddaan shaqaynayo 24 saacadoodba oo aan halkanna dadka soomaaliyeed halkan joogana Canada joogana aan intaan joogay u shaqaynayay halkaa intaan joogay aanan ka soo dhoofin aan u shaqaynayay inaan shaqadii sii wada uun mooyaane oo shaqadii dadka aan u shaqaynayay ballaariyo mooyaane dee madaxweyne waxa looga baahan yahay inuu qabto anigu horaan usoo qabtay iminkana gacantan ku haya maxamed adeer aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aasha aad weydiisay adeer gobolada SSC waxay ka mid yihiin dalka Soomaaliya xuquuq bay leeyihiin sida gobolada kale ee Soomaaliya ay xaq ugu leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan run ahaantii dadkaasi in badan bay isku dayeen inay maamul samaystaan nasiib wanaag maamuladii ay soo samaysteen uma suuro gelin iyadoo maaragtay mar walba ay jirtay faragelin kaga imanaysay dibadda gaar ahaan labada maamul ee ay u dhaxeeyaan runtii haddii aan xilka madaxweynenimada ku guulaysto goboladaas waxaan u qaban doonaa waxa ay xaqa u leeyihiin oo ah inay ayahooda ka tashadaan sida gobolada kale ama kaba yar ama ka maaragtay dakhli yar ama ka dad yar ay isu maamuleen xuquuqdoodana ay uga heleen dowladda federaalka marka haddii aan ku guulaysto xilka iyo haddii kaleba sidii aan horeyba maaragtay ugu soo shaqayn jiray ugana shaqayn jiray dadkaas inay taladooda gacanta ku qabsadaan ayahooda ka taliyaan taasaan sii wadayaa marnaba kama daalayo in goboladaasi ay soo noqoto sharaftii iyo karaamadii ay ku dhex lahaayeen guud ahaan geeskan Africa iyo caalamka iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya haddii aan jagada madaxweynaha ku guuleystay iyo haddaan ku guuleysan wax iga hor istaagi karaa ma jiraan dadka gobolada ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn xuquuqdooda inaan maaragtay u doodo oo u raadiyo tusaale ahaan dee hadda jagaba ma hayo oo waan u shaqeeyaa oo waan ka shaqeeyaa inay dadkaas helaan xuquuqdooda haddii aan jagada madaxweynenimada ku guuleystana kaba sii fiican oo markaa waxay xuquuqda ay ku lahaayeen dalka uun baan dee siinayaa mooyaane dal gobol kale iyo dad kale waxay leeyihiin u boobi maayo tusaale haddaan kaaga soo qaado marka laga reebo maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland intaas oo dadkoodu ay dhiseen mooyaane inta kale maamulada kale ee dalka ka dhisan saameyn xoog leh ayay ku lahaayeen dhisideedii dowladda federaalka ee Soomaaliya ama iyagaaba yagleelay tusaale haddaan kaaga soo qaado Galmudug waxaa la aasaasay oo si fiican ay isugu duba dhacday markii uu xukunka ama talada dalka qabsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkiisii arrimaha gudaha oo markii dambe noqday madaxweynihii koowaad ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed labaduba waa laba muwaadin oo ka soo jeeda Galmudug dadka Soomaaliyeedna kuma ceebaysan kumana dhibsan inay gobolada xaq ay u leeyihiin maamul u sameeyaan
maamulka waxaa adkeeyey oo si aanba qaaday markii dowladdii maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali khayre prime ministerka ay yimaadeen iyaguna halkaa kasii anba qaaday oo soo afmeeray oo ku bixiyey dhaqaale fara badan iyo energy fara badan sidii gobolka si u noqon lahaa gobol nabadgelyo khilaafkii siyaasadeed iyo kii diineedna iyo kii qabiilba intiiba ka saaray galmudug waad ogtahay maanta iyagoon 2 sano jirin oo wax ka yar waxay ka hormartay oo midnimadoodii iyo horumarkoodii uu kasii horumarsan yahay gobollo in badan maamulka haystay taa macnaheedu waxaan uga jeedaa haddaan madaxweyne noqdo iyo haddaan noqonba dadka xuquuqdooda inaan raadiyo oo aan geliyo waqti oo aan dhaqaale geliyo waajibaad dastuuriya weeye oo iga saaran waayo dadkaasi iyo gobolladaasi waxay ka mid yihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed